Assalaamu calaykum. Wuxuu ahaa waardiye la caayay se isu beddelay caalim la ixtiraamo. Cay kadib wuxuuna tusay inuu noqon karo cidda uu rabo iyo cidda uu maanta yahay ee aan naqaano. Waxa uu ahaa waardiye ka mid ah waardiyeyaasha jaamacadda Al-Azhar. Habeenkiina wuxuu gaadh kaga geli jiray jaamacaddaasi, halka maalintiina uu yar seexan jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagoo hagaajinaya oo nadiifinaya dhaskana ka biinaya agabka jaamacaddaasi ayaa buug uu arday ka mid ah ardayda jaamacadda Al-Azhar qoray xalay ayuu kaga daadiyey khad. Ardaygii oo xanaaqsan ayaa ugu jawaabay hadallo kulkulul, wuxuuna ku yidhi, waxaad tahay jaahil aan waxba garanaynin, aan aqoon badanna lahayn. Wuxuu doonana iska xumaynayaa, wuxuuna u adeegsaday erayo aad u kulkulul, taas oo ka cadhaysiisay ninkii odayga ahaa. Xilligaana waxa uu ahaa nin jaahil ah oo aan garanaynin waxba, se ah nin da' weyn. Maalintii wixii ka dambeeyey wuxuu bilaabay inuu wax barto. Habeenkiina wuxuu geli jiray gaadhka, maalintiina wuxuu isku dayi jiray bal inuu wuxuun barto. Wuxuuna bartay luqadda iyo culuumta Carabiga iyo arrimo diinta ku saabsan iyo qawaacidka iyo naxwaha Carabiga. Wuxuuna noqday ninka ugu fiican ee jooga jaamacadda Al-Azhar iyo caalimka ugu weyn ee laga ixtiraamo jaamacadda. Maanta waa laga yaqaanaa jaamacadda hadda aad tagto, waana caalimka ugu weyn. Waxaana xalqadu fadhiya maalintii dambe yimi wiilkii hadallada xunxun ku yidhi, isagoo ka dalbanaya inuu cafiyo, se isagu ma uusan iskibrin ee uu cafiyey. Wuxuuna ogaa inuu cafisku yahay jawaabta iyo argoosiga ugu weyn ee aad shaqsi kaga argoosan karto. Maaha wax adiga waxayn daabi karaa. Midda labaad oo ah iska cafi dadka, cafiskuna waa argoosiga ugu weyn ee qof kaga argoosan karto. Hadallada dadku iska leeyihiinna waa wax ku tiritireena oo dadku waxay eegeen keliya duruufta kaa muuqata ee may arag waxaad noqon karto. U dhaafaya Ramadaan Kariim iyo xalqada dambe, iyo adigoo raadkaaga inaad reebto adoona siinaya like iyo subscribe.